President Trump about Somalis living in Minnesota. Tonight, the president posted on Truth Social, quote, I am mustaqbalka dhow siyaasadaha iyo ajandayaasha waaweyn ee Allah lagu sameyn doono Soomaaliya qayb weyn bay ka noqon doontaa dhankaas Mareykanka sabab erniyo dhan jaalin jigreenooyo xisaabta dhan uu bedelano min Allaahil cadiim dadkaasi tay nagu dhigayaan السلام الله عليكم أصحابتي شو نقشوا ونكسن ما لها بيدور عصر المغرب إيش طلبوا أنت ونكسن وذيجي ترى مها إسباق إسجن النجا مداله النجا وحى واي سنة كان قاعدة كمان نصنه مدة ذيك أنا وحى فهم واي وروح عن بروجكت السمعة الدين مجا الصومالي السمعة الدين أيميا ساك الجرائد هذا ترى أو صومالي كقرتي وحى إذا عذاك هذلايو وحى بيجتك هذلايو Somali gangs are terrorizing the people of that great state. كاقدرن بيجتكاس ليت iyo commentiska iyo helayaan iyo filcilinta warniyahow tan waxaan u maleynaa dhawaan waqti aan fogeyn Soomaaliya oo ajandayaasha waaweyn ee qolooyinka midigta fog iyo olayaasha ay ku galaan ee shacabkooda iyo cod kaga raadsadaan ay ku qiil doontaa inay noqon doonto anaa idinka yaabin doona hadii aan ugu shubtay fadlan channelku waa channelka ku soo dhow gacmo furan commentigu maanta waa Soomaaliya guul ilaahayo waa noo jeedaa ilaahayo waa noo jeedaa waxa sumcadin lagu soco Soomaaliya guul commentigu soo qor leeytan barnaamijka noo saaro ka hilmaamina ayda ka daba geeyo horta Mareykanka 80% waxa ka shaqeysa qorshe la yiraahdo albaabkan xir albaabkan hore ka fur odaga Trump aha laba arimood is dul saarneed asbuuca laba asbuuc la soo dhaafay xataa saxaafadu ka dhuumanay waxaad saarneyd faylal Amsterdam files la dhaho oo asaga magaciisa 2000 oo jeer lagu xusay inta la soo fasaxay kaliya media waa ka dhuumanay odayga doorashadii New Yorkna reer New York saana u jaalan jigreenooyin caadi ugu shidanooyin macnaha saqiir small saqiir fooqal saqiir taagiin small New York dhana macnaha odayga jaalanji karbaasha media kaga socdo waa lagu baashaalooyaa waxa kaaga sii daran ninkii mamdaani u dhahay waa celina iyo intaan ka dhaca iyo intaan ka boodaan waa la sii kulmay odayga filinkaas ma soo xiray jabtarkaas albaabkaas ma soo laabay ninkii ma la kulmay Soomaaliya war isu taagan yahay alaab wuxuu iska soo jaray mideeda kale waxaan ka naxay waa qoliga loo qabtay macnaha ujeedada muuqaalkan u duubay sababta ugu weyn ma taqaanaa niyahow waagoor waxaan ahayna nugula sheegi jiray ma socon jirin laakiinse wixii lacag la dhunsado iyo wixii musuq maasuq ahaa ee idaacadaha waayada dhan ay tabinayeen hadeer boontiga la qabtay billions dollars dhunsadeen aan leeyahay hadii la baaran TV-da wada saarana waa qodobkii u dhilay muuqaalkaas macnaha Trump sida aad aragtaan wuxuu leeyahay Minnesota oo gudoomiye ka yahay Tim Walz waxa ay hab u noqotay ama saldhig u noqotay isdaba marinta lacagaha musuqmaasuqii ballaarna ayuu ka sheekeynaya oo Soomaalidu ay ku lug lahaayeen arintan inay soo socoto anigu waan dareemayay dadkan cunsuriyiinta aan hal mar dhigto wax loogu tilmaamaa mar labaad looma tilmaamo ficilkii alla wada qaatabo ها Minnesota waa u duceeyaa lacag xadisay baabaha uga dhigeen waligay ma arkin dadkaas oo shaqeysanaya dhowr qof oo taxi Uber ka xiyay maahe intooda kale lacag ay xadeen ku joogan newski ugu wanaagsanaayo aan maqalno madaxweyne naga soo gaaro nabadbaad macnaha waagi hore waa saan iyo foreheada leedihiin iyo wadan fashilmaha ka soo jeedaan iyo macnaha waxa soo dhan dood waxay ahayd durugsan oo Mareykanka ka dhaxbaxsan laakiin sahadeer bointi cada lagu hayaa macnaha tuugadii aan leeyahay Soomaalidu waa tuugo ameel ku soo wada qorayaan alla niyahow sida nugula soo maqan yahay mideeda kale waxaan ka yaabay Mareykanka hadeer siyaasadaha Mareykanka qolada midigta fog haday Soomaaliya soo hadal qaadaanbo arintaas waa qaraxsan tahay macnaha waa wada viral adduunka meel kasta looga soo hadlaa President Trump about Somalis living in Minnesota. Tonight, the president posted on Truth Social, quote, I am, as president of the United States, hereby terminating, effective immediately, the temporary protected status for Somalis in Minnesota. Somali gangs are terrorizing the people of that great state, and billions of dollars are missing. Send them back to where they came from. wuxuu sheegay Trump in Soomaalida Minnesota ay geliyeen amniga magaaladaas qalqal in ay ka bilaabeen toognimo in dadkii wax bartay Soomaalida ay galeen fraud lacag fara badan malaayiin ay maqan tahay marka ay dhibaato ku yihiin gobolka ama state-ka Minnesota
uu rabo in laga kansalo sharcigan dibna loogu celiyo waddankoodii. Jacob Ferry oo maalin dhaweyd iyo Cumar Faatax oo ku tartamaya kursiga Minnesota Soomaalidu ma taqaanaa dadkii ugu badnaa u codeynayeen kamid ahaa waa ka soo hadleen labadooda macnaha waxa waaye waa laakiinse Jacob Ferry hawl dheer u taalo waxa waaye waa hadda baasha Minnesota soo gashay doorashadii hadda ma dhamaatay odaygii meesha ugu sareeya weerar soo qaaday haddeera marka waxa waaye culeysku ugu badnaa hadduu imaanaa wax qabadkii ugu muhiimsan hadduu imaanaa si loo difaaco warqadahaas iyo sharciyadaas Soomaalidu ay lahaan jirtay oo haddeer uu raba ninkan inuu qoorta ka jiro ama meesha uu ka saaro kolley Soomaaliyay laba maado isku heshaan inaa wadankiina hagaagsan weydaan wadankiina inaa quruxsan weydaan nin shisheeye wadankiisa walow Mareykan waxa waaye de la wada tagay laakiin maadaama meesha ay ku badan yihiin inay haddeer baadi kugu fogaato waxa la xoolaha moodaa haddeer ay xoolahooda ay moodaan in la dhaho waxa waaye wadankaaga inay hagaagsan weydid wadan kale oo qaxootiga ku ahaydna inaa calashaan musuqmaasuq iyo dhaqamo aan laga aqoon aan la tagtay isma keento walaalo hadaa wax musuqmaasuqaysid wadankaaga musuqmaasuq hadduu dowladnimo ka jirtana dadkaaga ku xiranayo haddii aad dowladnimo aysan ka jirinna dee dadkaaga ku dhib qabo laakiinse waa baxaa wadankaygaan ka baxaa wadan dadow oo dad dhisteen oo sharciyo la dhistay oo la kala qortaan u tagaa asaan wixii aan wadankayga ka sameyn lahaa inta ka sameynaa ma soconayso walaalayaal wadana wax ku musuqmaasuqataan haddaa musuqmaasuqiisa u qabtaan wadan waa leedihiin laabta aysan ahaynna dadkan shuruuc iyo qaanuun u leeyihiin ugu noolaada adduunka ficilka sameeysan haddeer shooshi adduunka saxan buu ku wada fadhiyaa ma Soomaalidu waa tuuga hadii la dhoo geeskan jeenaha jooxta Soomaalidu tuuga laga aaminaa macnaha marka sawir qaldan suuqa naga gelinina waxa waay alihiin allamaya idin duceeno filinkan ma reer Mareykan ma qolada musuqmaasuqa waay qolada musuqmaasuqa ku waalato waay ee wayna la soo qabanay qeyr Allah idin siiyo walaalayaal ummadana madax goosanna maanta waagi hore maanta hal kelmad oo social media gashaa caalam gees gaarayso anagana sumcad dilna ummadda Soomaaliyeedna sumcad dilna waayahay umuur xaasil taraamo soo soco ترامو أدا داليس أنا جمد دالي نصوصه برنامج كي تاسون سوق وجوني برنامج خلنا نروح مدة ديال عندكم تروح مدة لايك سكرايب لكن sida muuqata arrintan waa ay soo socotay Soomaaliyeed markii lacagihii fara badnaa oo dadka canshuur bixiyaasha ay bixinayeen la musuqmaasuqayo meeshii dad fiire lacag loogu talagalay xilliga coronavirus in caruur lagu qoodiyo baahan oo iskuuladii ay ka xirnaayeen kuwa loogu talagalay dadka waayeelada ah dadka daraagiska laga dhaqayo dadka guriyeel aanta in guriyeel loogu raadiyo kuwii loogu talagalay caruurta autism-ka qabo in inta albaabada la gargaraaco la yiraahdo waran ilmahaadu xanuun hadaysan qabin xitaa noo keenso kuwa wadankii ka maqan lacag lagu bixiyo ilma aan qabin autism lacag lagu qaato arrintan inay soo socoto waa ay muuqanayso goordhowna waxa dhici doonto in ciidamada militariga uu Trump u soo diro magaalooyinka mataanaha Minneapolis iyo St. Paul hadda waxay ka soo faraxasheen Charlotte North Carolina waxay u socdaan New Orleans marka waxa laga yaabaa in Minneapolis iyo St. Paulna ay ku soo xigaan marka ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay balaayiin doolar oo lacag federaal ah ayaa ku maqan uu leeyahay gobolka Minnesota oo Soomaalida ayaa qaatay sida aad arkaysaan gaangiskii waa iyagu leeyahay shacabkoodii ayayna qalqal gelinayaan oo gobolka ku dhaqnaa marka wuxuu leeyahay waa it is over waa dhamaato yiri balaayiin doolar maqan sidaas darteed wadankoodii dib loogu celiyo temporary protected statuskii TBS-tina gabi ahaanba waan kansalay ayuu leeyahay sida muuqata marka wadamo fara badan jiray oo TBS-taasi laga kansalay marka Soomaalida hadda hadii aad TBS haysato ay ka dhacdo macnaheedu waxay tahay waa lagu qaban karaa waana lagu masaafurin karaa marka ninkii Trump aha warkiisi waa uu cadeystay waa kan qoraalkan goordhow soo galiyay bartiisa True Social waxyaabaha kale ee soo kordho waa idin soo socodsiin doonaa insha Allah